dowladda hoose ayaa wado howlo ay ku burburinayso dhulal ay sheegtay in ay sharci darro yihiin iyo kuwa ay ku sheegeen in ay yihiin hantida mugurtada ee dowladda hoose. haddaba qayb ka mid ah masjidka Sheekh Cali Suufi ee ku yaala isgoyska KBB ee degmada Hodan ayay dowladda hoose burburiyeen iyaga oo ku sheegaya in uu ahaa jardiin ka mid ah hantida dowladda sida iyaguba noo sheegeen. qaar ka mid ah xerta masjidka iyo awlaadda uu dhalay Sheekh Cali Suufi Allah u naxariistay ayaa waxa ay mustaqbal u sheegeen in si sharciga aan waafaqsanayn loo burburiyo dhul uu leeyahay masjidka isla markaana ay u heestaan taariikh dowladii Cabdirashiid Cali Jarmaarki inuu ahaa qayb ka mid ah masjidka. hadaladooda waxaa ka mid ahaa maanta in la isku soo dayo waa shay xawaaye waa duceefnimo aad iyo aad wadankan wuxuu soo maray dowlad badan soo maray maxamed saad baa ka xishooday waxaa ka Cabdiqaasim baa imaaday waxaa ku Cabdullaahi Yuusuf waxaa ku xigay Sheekh Shariif maanta u taagan tahay in loo soo gudbo arrintaani waa arrin aad iyo aad waxaan ugu cadeynayaa dhulkan inuusan ahayn dhul hadda la dhisay ee xilligii dowladda Saadbar ay dhacaysay uu dhisnaa 2008 ayaa dagaaladii ay ku burburtay meeshan oo banaan baa marka ciidamada la soo duldhigay ciidamada oo jooga warqad loo soo sameystay habeen madow ay baneeyeen waxaan waaga noogu bariyay cagaf oo ku jirta masaajidku hadda qayb ka dunsanna waad aragteen qaybta dambe marka waxaan leenahay aakhiri adduunyo kala badan anagu waxaan cadeynaynaa dhulkan in reer Sheekh Cali Suufi lahaayeen xiriir aan la sameeyay maamulka gobolka oo arrintan qusaysa ayaa waxa inoo soo gashay in aan helno afayeenka gobolka Banaadir Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko mustaqbal waxa uu sheegay in dhulkaas uu ahaa jardiin ay dowladdu leedahay isla markaana ay been abuur tahay in dhulka uu ahaa qayb ka mid ah masjidka. dhulkii qofal baa garanayo jardiinka ahaayo laamiga ku yaalay weey oo weligeed ba jardiinka ahaayo kulaasta dhagaxa iyo midka dhagaxa lahaa weey marka dhul ayagu ay leeyihiin ma aha waa dhul dowladda hoose leedahay cidda ay isku haystaan Cali Seeko iyo qof kale ma aha waa ayaga iyo dowladda hoose weey marka iyaga hadii wadanka dowladda ka yihiin oo dhulka iska samaysanayaan haday dhulka leeyihiin weydiiyana Canada warqadiga ku leeyahay Canada dhawaan ayay ahayd markii ay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in maamulka gobolka Banaadir uu salkiciyay 28500 oo dad barkacyaal ahaa hase yeeshee eedeymahaas maamulka gobolka Banaadir uu iska fogeeyay.